inaad fikirkayga igu raacdaan dhammaantiinna waa la socotiin waddankan waxaa ku batay dembiyada dilalka iyo musuqmaasuqa adiga haddii aan kuu soo jeesto khaasatan Mr. Baradan waqtiga aad ahayd sargaal boolisa wax walba gacanteen ayay ku jireen sidaa daraaddeeda hadda waxaan rabnaa inaan kaa faa'iidaysano khibradihii markaas aad isticmaali jirtay ma noo sharaxi kartaa si aan anagan arrimeen xal ugu helno master jigdar sideeda banaanba waxaan ilowna anaga dadka ciidamada noogu jiro tan kale waxaan hilmaamnay muhiimadda ay noo leeyihiin dowladdeena waxay kaloo hilmaamtay dadkaas mas'uuliyadda aan saaranay iyo shaqada ay noo qabanayaan muhiimadda ay noo leedahay waxaana loo baahan yahay dadka shaqada loo dhiibanayo in ay yihiin dad shaqadaasi khibrad u leh kana soo bixi kara shaqo alaala shaqadii loo dhiibto qof lagu kalsoonaan karo musuqmaasuqana la dagaalamaayo yaa maskaxdaada ku jira saadu akaash waa nin lagu kalsoonaan karo shaqadiisuna aad ay u sarreyso qarankana wax badan ayuu u soo qabtay wuuna dhammaystiran yahay ninkan haddii aad i weydiiso shaqadan nin ka soo bixi karo ninka la yidhahda saadu nin uga habboon haba yaraatee ma jiro anigana fikirkayga wuxuu ahaa lahay ninkaas in loo dhiibo shaqadan hayloobin laakiin saadugaa sheegaysa 3 sano bar inuu xabsi ku jiray musuqmaasuq aabiisna waa asaga adoo kiisas badan galab agteena fadhisaa naga aamus Mr. Bardamba haddii uu leeyahay hawshan siduu oo kaliya ayaa qaban kara anaga waan ku qasbannahay siduu inaan dib u soo celino uu hawshiisana qabsado kaashaf هاتلي waxaan rabaa siduu inaad wacdo sida ugu dhaqsiyaha badan uu ku imaado adigana aad la kulanto ويا تلي هاي سدوا قناش حفدي ساون سادو مستر سادو كالي مدن وإلى جوجا ويا وعيرسك مدن وزير هذا لو هالو تلي halo siduu jagdaar ayaa kula hadlaya akhbaar muhiim ayaan ku hayaa